بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa magaalada maalmo ee dalka Sweden lagu soo bandhigay buug cusub oo laga qoray taariikhdii Cabdikariim Faarax Qaari Jiir oo ka mid ahaa madaxweynayaashii ugu caansanaa ee dhulka Soomaalidu degto ee Geeska Afrika, gaar ahaan wadanka Soomaaliya. Inta aan xusuusnahay in ka badan 60 heesood oo ay qaadaan fanaaniinta ugu caansan wadanka Soomaaliya ayuu la xameeyay. buugga waxaa qoray wiilkii uu dhalay abwaan Cabdikariim Faarax Qaari oo lagu magacaabo Haashim Cabdikariim, waxaana lagu soo bandhigay buuggan magaalada Maalmo ee wadanka Sweden iyadoo uu daadihinayay barnaamijkan Cabdisalaam Hereri. dhawaan halkan kaga bogo waxaanu idiin soo wadnaa dhammaan heesihii ugu badnaa ee uu la xameeyay. ugu horeyso heestii Beledweyne, sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa heeso fara badan oo uu la xameeyay abwaanku. dhammaan shacabka ku nool magaalada Maalmo ayaa ka qayb galay bandhigga buuggan, waxaana aad iyo aad loo gatay buuggii. dadkuna waxa ay safaf dhaadheer ugu jireen iibsiga buuggan oo ay aad iyo aad u xiiseynayeen. waxaa la filayaa in dhawaan buuggan uu soo gaaro Afrika iyo guud ahaan caalamka. halkan kala soco barnaamijkaas oo dhammaystiran dhawaan.